soo dhawaada saaxiibayaal meel kastaad adduunka ka joogtaan waxaan idin leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado waxaan bal hal iyo labo ka dhihi doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub iyo kuwa laga ciyaari doono maanta ilaa iyo caawa waxaan soo qaadi doonaa guulihii ay gaareen kooxaha Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Milan iyo Inter barbardhicii ay galeen Borussia Dortmund iyo Bayern Munich iyo kooxda kubadda cagta PSG barbardhicii ay la dhaafi weysay naadiga la yiraahdo Reims. Waxaan sheekooyinkeena ka bilaabeynaa horyaalka Premier League Ingiriiska. Horyaalka Premier League Ingiriiska waxaan soo qaadi doonaa kooxda kubadda cagta Chelsea guushii ay ka gaartay naadiga Wolves. Kulankan waxa uu ahaa mid markaasi Blue ay doonaysay inay guul qaadato isla markaana ay ku soo gasho marka kaalimaha afarta sare ee looga soo qayb gala tartanka UEFA Champions League. Kulankan waxay soo dhaweeyeen kooxda kubadda cagta Wolves kulankii ka dhacay garoonka Stamford Bridge-na waxaa markaasi sacab ka helay taageerayaasha Blue ninka la yiraahdo Diego Costa oo isagoo markaan matalaya kooxda kubadda cagta Wolverhampton Wanderers ama Wolves markaa soo gaaray garoonka Stamford Bridge. Taageerayaasha Chelsea waa ay u sacabtumeen si weyn ayayna markaasi u soo dhaweeyeen isaguna markaa waa u gacan haatiyay taageerayaashiisii hore ee Blue. Haddaba Chelsea 3-0 ayay kaga adkaatay kooxda Wolves waxaana goolashaasi ka mid ahaa mid uu dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Brocha oo ahaa goolka saddexaad ee kulankaas. Brocha waxa uu sidaa ku dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay kooxda Chelsea runtiina aad ayuu ugu farxay. Chelsea guushan muhiim ayay u ahayd maxaa yeelay waxay ku soo gaareen kaalinta afaraad ee kala sareynta horyaalka Premier League Ingiriiska. Waxay leeyihiin 16 dhibcood iyagoo 13 gool dhaliyay 10 laga dhaliyay 3 gool oo nadiif ah ayay markaasi haystaan 8 kulan oo ay ciyaareenna waxay fadhiyaan afarta sare ee markaasi looga soo qayb gala tartanka Champions League gaar ahaan booska afaraad. Haddaba haddii aan markaasi eegno kooxda kubadda cagta la yiraahdo Manchester City lafteedu markaa shalay waa ay ciyaartay waxaana ay xasuuqeen kooxda la yiraahdo Southampton 4-0 lagu tiiriyay iyadoo ninka la yiraahdo Erling Haaland weli shabaqa laga celin laayahay. goolasha xidiga kala duwan ayaa dhaliyay laakiin waxay indhuhu hayeen xidigaha kooxda Southampton oo markaa aad ugu mashquulsanaa sidii ay ku celin lahaayeen ninka la yiraahdo Erling Haaland oo koox kasta oo uu ka hortago markaasi gool ka dhalinaya ilaa hal kulan mooyee dhammaan kulamadii uu ciyaaray una dheelay Manchester City-na gool dhalinaya. Haddaba ciyaaryahankan taageerayaasha Premier League qaarkood ayaa codeeyay in markaasi laga musaafiriyo dalka oo waxay leeyihiin war naga tag oo dalka nooga bax. haddii markaasi ay ku guul dareystaan codeyntaasina waxaa markaasi la horgeyn doona arrintaasi baarlamaanka Britain iyagoo markaa bayaan ka soo saari doona ama markaasi ka hadli doona laakiin waa tirada markaasi codadka ugu badan ee ugu muhiimsan haddii markaasi laga helo in ninkan la musaafiriyo. Haaland waxa uu balaayo ku dhigay madax lug jiif kubad isku dhacdhacday luuqa diilinta ganaaxa banaankeeda gudaheeda meel kasta ayuu ku dhalinayaa gool. koox uusan ka dhalin hal xabaa ka jirta macnaa intii uu ka hortagay intuu maaliyada Manchester City xiran yahay. Southampton marka waxay isku dayeen in ay haayaan ciyaaryahankan jooga dheer oo ay ilaaliyaan inta ilaalin kareen sidaas oo ay tahana waa uu ka dhaliyay mar kale. goolasha waxaa kala qaybsaday Cancelo, Foden, Mahrez iyo Haaland. marka Haaland goolka afraad uu dhaliyay taageerayaasha Manchester City waxay ku leeyihiin ninkan la yiraahdo Haaland haddii uusan gool dhalin waa xanaaqsanahay anaga war 3 gool ay leeyihiin oo Cancelo iyo Foden iyo Mahrez gool idin dhaliyay Southampton kulankeeda maya Haaland ma dhaliyay illa Haaland oo ka dhalina waxa waay waa la xanaaqsanaa kulaha Allah goormeeba macnaa heerkaas gaaraysan Haaland ma sheekadaas waayahay Real City ciyaaryahan gool magafa waa hesheen 20 kulan oo tartamada oo dhan uu dhalinaya ciyaaryahankan jooga dheer la yiraahdo Erling Haaland 15 gool oo kamid ah goolashaasi waa horyaalka Premier League Ingiriiska ka waran 13 kooxood oo horyaalka Premier League ka dheela ayuu hadda ka gool badan yahay Haaland warinteelna la wada xil ciyaareedkan horyaalka Premier League marka la eego 13 kooxood 20 kooxood ee horyaalka Ingiriiska ka ciyaara Haaland aa ka gool badan lagu yiri marka Haaland xidig caadi lama tartamaya marka kooxu la tartamaya Kevin De Bruyne ahaa lagu dhahay ciyaaryahanka markaas uu goolasha badnaa horyaalka Premier League xil ciyaareedkii hore kooxda Manchester City 15 gool u dhaliyay Haaland hadda xil ciyaareedkan horyaalka laga marayo 15 gool marka waa dareemi kartaa meeqa gool lagu qaadi karaa. Kevin De Bruyne waxa uu markaasi ka mid noqday 5 ciyaaryahan ee ugu caawinta badan taariikhda horyaalka Premier League Ingiriiska. xidigan reer Belgium ee kooxda Manchester City waxa uu xagga caawinta horyaalka Premier League ka sare maray xidigii hore ee Arsenal ee Dennis Bergkamp oo markaa min 94 ay lahaayeen caawin oo ku tuurtay kulankii Southampton ayuuna markaasi ku dhaafay noqdayna xidiga markaasi shanaad ee ugu caawinta badan taariikhda horyaalka Premier League isagoo caawiyay 95 gool. Waxa ka sareeya oo ah xidiga ugu caawinta badan horyaalka Premier League Ingiriiska Ryan Giggs
oo markaa isagu caawiyey 162 gool oo horyaalka Premier League ah, Cesc Fabregas oo sameeyey 111 caawin oo horyaalka Premier League Ingiriiska ah, Wayne Rooney oo 103 caawin sameeyey iyo ninka la yiraahdo Super Frank Lampard oo 102 caawin sameeyey. Marka Kevin De Bruyne 95 caawin ayuu ka sameeyey hadda horyaalka Premier League Ingiriiska, waxaana la saadaalinayaa in saddexda ka sareysa ee Lampard oo 102 caawin leh, Rooney oo 103 caawin leh iyo Cesc Fabregas oo 111 caawin leh oo markaasi soo qaban karo xagga caawinta ninka la yiraahdo Kevin De Bruyne. City guushaas waxay uga dhigneed in ay markaa ku soo laabtaan halka ugu sareysa horyaalka Premier League Ingiriiska ama hogaanka ay u qabtaan horyaalka iyagoo leh 23 dhibcood. Si ku meel gaar ah ay markaa hogaanka u sii hayaan baa la leeyahay, maadaama Arsenal ay markaasi lana dheelayso Liverpool oo markaa iyadu hal dhibic kula wareegi doonta hogaanka horyaalka Premier League Ingiriiska waa haddii ay ka adkaato kooxda Liverpool. dhanka horyaalka La Liga Spain haddii aan eegnana kooxda kubadda cagta Real Madrid iyana waxay gool iyo eber ku qaarijisay kooxda la yiraahdo Getafe oo markaa ay booqatay. Eder Militao madax uu dhaliyay oo uu ka caawiyay Luka Modric ayaana markaasi guul kaga filnaaday oo markaa ku filnaaday inay 3 dhibcood ka soo qaataan kooxda Getafe oo ay booqdeen, inkastoo ay khasaariyeen fursado badan oo gool loo filan karay, sidoo kalena aaladda VAR ay ka diiday gool uu dhaliyay ciyaaryahanka reer Brazil ee Rodrigo. haddana sidaas oo ay tahay Real Madrid gool iyo eber ayaa kaga filnaatay in ay ku soo qaataan 3 dhibcood. hogaanka horyaalka La Liga Spain ayay hadda haysaa Los Blancos iyadoo leh 22 dhibcood isla markaana ciyaartay 8 kulan. Barcelona ayaa 7 kulan ciyaartay oo leh 19 dhibcood kuna jirta kaalinta labaad ee horyaalka iyadoo markaa caawa iyaduna dheeli doonta lana balansan kooxda la yiraahdo Celta Vigo. dhinaca kalena kulankii weynaa ee la wada sugayay saaxiibayaal ee u dhaxeeyay kooxaha AC Milan iyo Juventus ayaa xalay qabsoomay iyadoo kooxda Milan oo marti loo ahaa ay 2 gool iyo eber dirtay naadiga marwada duqda ah ee Juve. caradii ay ka soo qaaday kooxda Chelsea oo markaa tartanka Champions League ka soo adkaatay ayay kala dul dhaceen kooxda marwada duqda ah ee Juve oo marti u ahayd, waxaana Milan 2 gool u kala dhaliyay ninka la yiraahdo Fikayo Tomori kadib caawin oo ka helay Olivier Giroud, halka goolka kalena uu markaasi dhaliyay Diaz waa ciyaaryahanka la yiraahdo Brahim Diaz. guushaas ay kooxda Milan ka gaartay Juventus ayaa kooxda Rossoneri markaa ku hogaamisay kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka Serie A Talyaaniga, inkastoo ay dhibcaha la wadaagaan labada kooxood ee ka sareysa ee kala ah Napoli iyo Atalanta oo ay leeyihiin min 20 dhibcood. Napoli, Atalanta iyo Milan min 20 dhibcood ayay leeyihiin iyagoo markaasi Milan ay ciyaartay 9 kulan laakiin Napoli iyo Atalanta ay min 8 kulan dheeleen. marka sidaasi awgeed kooxda Milan iyadoo 9 kulan dheeshay ayay 20 dhibcood markaasi haysataa, waxaana ay sidaasi ugu jirtaa kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka Serie A Talyaaniga. kooxda marwada duqda ah ee laga adkaaday ayaa iyadoo leh 13 dhibcood waxay fadhisaa kaalinta 8aad ee kala sareynta horyaalka Serie A Talyaaniga. Juve waa ay ka jajaban tahay kala ciyaareedkan, booska 8aad ayaana markaasi uu gambarku u yaala. kulankii kale ee weynaa ee xalay la daawada waxa uu saaxiibayaal ahaa midkii u dhaxeeyay kooxaha Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ee ka wada dhisan wadanka Jarmalka. waxay isku qabteen kulanka la yiraahdo Klassiker markaasi ay ciyaaraan labadan kooxood ee klassikada ah ee u dhaxeeya Dortmund iyo Bayern Munich, kaasoo markaasi ay ku xafiltameen horyaalka Bundesliga Jarmalka, waxaana kulankaasi uu ku dhamaaday 2 gool iyo 2 oo markaasi ay isku mari waayeen labada dhinac. kooxda kubadda cagta jaalayaasha ee Borussia Dortmund ayaana daqiiqadii ugu dambeysay ee kulanka la timid goolka barbardhaca ee ciyaarta. waxay ka soo laabteen 2 gool oo lagu hogaamiyey, waxaana markaasi Bayern Munich 2 gool u kala dhaliyay ninka la yiraahdo Leon Goretzka iyo sidoo kale Lorissan. casaan ayuu qaatay ninka la yiraahdo Coman daqiiqadii 9aad ciyaarta oo markaasi maraysa 2 gool iyo gool oo Mokoko ciyaaryahanka la yiraahdo uu 74 daqiiqo 2 gool iyo gool uga dhigay kooxda jaalayaasha, laakiin Modest ciyaaryahanka la yiraahdo ayaa daqiiqadii ugu dambeysay kulanka madax ugu shubay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. sidaasna kulanka waxa uu ugu soo idlaaday barbardhac 2-2 ah. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta PSG ayaa ugu weyneed horyaalka Ligue A Faransiiska, waxaana ay barbardhac gool la'aan ah la dhaafi waayeen naadiga Reims oo markaa ay booqdeen. Paris Saint-Germain ayaa markaa wax walba isku dayay oo ay ku adkaan kareen kulankan, laakiin waxaa dilay casaan uu ka qaatay ciyaaryahankii hore ee kooxda Real Madrid ninka la yiraahdo Sergio Ramos. waxa uu ahaa casaankii labaad ee uu qaato inta uu xiran yahay maaliyadda kooxda PSG. ninkan casaan looma sheego. Ramos daafacan Isbaanishka ah ayaana markaa sidaa ku qaatay xalay kaarkiisii casaanka ahaa ee 28aad ee xirfadiisa ciyaareed. marka ninkan kaarka iyo funaanada la iska bedelay isku mid u yihiin. Ramos sidaas ayuu ku hantay
kaarkiisii casaanka ahaa ee 28aad ee xirfadiisa ciyaareed. Marka kooxdiisana guul darro ay ka badbaaday, laakiin guul waa ay qaadan weysay oo barbardhac gool la'aan ah ayaa lagu celiyay. sidaas ayayna markaa PSG ay ku lumiyeen kulankan 2 dhibcood oo nadiif ah. markana saaxiibayaal aan dulmar ku sameeyo kulamada waaweyn ee maanta ilaa iyo caawa laga ciyaarayo horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub, gaar ahaan horyaalka Premier League Ingiriiska, La Ligaha Spain, Serie A Talyaaniga, Bundesligaha Jarmalka iyo Ligue 1ka Faransiiska. haddaba haddii aan ku horeeyo kulamada laga ciyaarayo horyaalka Premier League Ingiriiska, 10 saac waxaa markaasi soo geli doona ama 4 galabnimo xilliga Geeska Afrika labada kulan ee kala ah midka u dhaxeeya Crystal Palace iyo Leeds United iyo kan kale ee markaasi u dhaxeeya kooxaha West Ham United iyo Fulham. 12:30 ama 12:30 daqiiqo ah ee maqribnimo xilliga Geeska Afrika waxaa markaasi wada ballansan kooxaha waaweyn ee Arsenal iyo Liverpool. kulankan waxa uu ka qabsoomayaa garoonka Emirates. Manchester United ayaa kulan qayb ka ah horyaalka Premier League Ingiriiska iyaduna 9 habeenimo caawa xilliga Geeska Afrika booqanaysa kooxda kubadda cagta ee Everton. waxay ku booqanaysaa garoonkeeda la yiraahdo Goodison Park ee magaalada Liverpool. horyaalka La Ligaha Spain haddii aan eegnana waxaa markaasi jira ilaa 4 kulan, waxaana kulanka ugu horeeya uu yahay midka 3 galabnimo markaasi ay ciyaari doonaan kooxaha Real Valladolid iyo Real Betis. kulanka kale ee 5:15 daqiiqo soo gali doona waa midka u dhaxeeya Cadiz iyo Espanyol 1 saac iyo bar fiidnimo xilliga Geeska Afrika. caawana waxaa ballansan Real Sociedad iyo Villarreal, halka kooxda kubadda cagta Barcelona ay markaas soo dhaweynayso garoonkeeda Camp Nou ay ku qaabilayso naadiga Celta Vigo 10 habeenimo xilliga Geeska Afrika. Serie A Talyaaniga waxaa markaasi ugu weyn kulanka u dhaxeeya kooxaha Roma iyo Lecce, waxaana markaa kulankaasi uu baasmi doonaa 9:45 daqiiqo, iyadoo kulamo kale ay jiraan sida midka u dhaxeeya Torino iyo Empoli. horyaalka Bundesligaha Jarmalkana waxaa markaasi balansan ilaa 3 kulan, waxaana markaasi ugu roon amaba ugu madax fiiqan kulanka markaa u dhaxeeya Borussia Mönchengladbach iyo kooxda la yiraahdo FC Cologne. waxaa sidoo kale kulamo laga ciyaaraya isagana horyaalka Ligue 1ka Faransiiska. muuqaalka nagu sii dheeraaday gabagabadii aan isla soo gaarnay saaxiibayaal, sidaas nabadgelyo.